shirkadda WhatsApp ee laga leeyahay Facebook ayaa tijaabinaysa adeeg macaamiisheeda u ogolaanaya inay fariimo isku diraan iyagoo aan taleefanadooda gacanta haysanin. waana markii ugu horeysay ee arrintan la isku dayo. waqti xaadirkani WhatsApp waxa uu dadku ku qasbaa inay taleefanadooda gacanta ku xirnaadaan iyagoo aanan isticmaali karin la'aantiis. xitaa waxaa lagama maarmaan ah markii laga furanayo kombiyuutar ama aalad kale waxaa lagama maarmaan ah in lagu xiriiriyo taleefankaaga gacanta. laakiin adeegga cusub waxa uu dadka siin doonaa fursad ay fariimo ku heli karaan xitaa haddii uu taleefankaaga u damay batari la'aan aawadeed. ilaa 4 aaladood oo kale sida kombiyuutarada ama tabletyada ayaa si wadajir ah loogu isticmaali doonaa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta WhatsApp. marka hore adeega ayaa qaab hordhac ah loogu fasaxi doonaa koox yar oo ka mid ah macaamiisha. shirkadda ayaa sameynaysa dadaalo lagu horumarinayo adeegaas ka hor inta aanan loo fasixin qof walba. ilaalinta xogta qoraalada labada dhinac oo ah adeega WhatsApp ku caanbaxay ayaa weli kusii shaqayn doona habka cusub ee lasoo kordhinayo sida ay maamulka xaqiijiyeen. shirkado dhowr ah oo u shaqeeya sida WhatsApp ayaa hore u sameeyay adeegyo noocan oo kale ah, waxaana ka mid ah shirkadda ay xifaaltamaan ee lagu magacaabo Signal, taasoo macaamiisheeda telefoonka ku xujeysa marka ay isdiiwaangelinayaan. kaliya qof walba oo adeegaas isticmaalo kuna qasban inuu telefoon haysto marka uu fariimo dirayo ama helayo. laakiin muddo dheer ayaa WhatsApp laga dalbanayay adeegan iyadoo lagu soo waramayo inay codsadeen macaamiil gaaraya 2 bilyan oo ruux. bayaan lagu shaaciyay talaabadan cusub ayay injineerada Facebook u sheegeen in isbedel u baahan yahay dib u fikrid ku saabsan software-ka laga sameeyay WhatsApp-ka. sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay shirkadda, qaabka hadda la isticmaalo wuxuu ku qorsheysan yahay taleefanno casri ah maadaama iyaga kaliya awood u leeyihiin ilaalinta xogta macaamiisha. adeega kombiyuutarada ee WhatsApp web iyo aaladaha kale ayaa ka dhigan muraayad laga arkayo taleefankaaga gacanta. hase yeeshee qaabkaas ayay macaamiisha ka cawdeen maadaama uu mar walba kala go'o. taas ayaa sidoo kale ka dhigan in halkii marba hal meel laga isticmaali karo WhatsApp-ka haddii meel kale laga furana uu xirmayo kii hore u shaqaynayay. adeega cusub ee WhatsApp ee ugu talagashay aaladaha badan waxaa meesha ka saaraya ciladahaas mana dalbanayo telefoon casri ah oo saldhig u noqda isticmaalka. welina waa la sii ilaalin doonaa xogta macaamiisha ayay tiri shirkadda WhatsApp. laakiin Jack Moore oo khabiir ku ah amniga kana tirsan shirkadda la dagaalanka fayraska ee internetka ayaa sheegay in si walba oo loo xoojiyo amniga marba haddii aalado badan la isticmaalayo ay halis garin karto amniga. markasta waxaa jiri doona dad xumaato sameeya oo isku dayi doona in ay xogtaada xadaan, sida uu hadalka u yiri. dadka tacadiyada ka geysta qoysaska dhexdooda iyo kuwa shukaansiga qasabka ah raadiya waxay fursad u heli karaan inay adeega cusub isticmaalaan. wuxuu sidoo kale sheegay in qofka macmiilka ay mas'uuliyad ka saaran tahay sida uu iskaga ilaalin lahaa dadka sida qaldan wax u isticmaala. dhowaan ayaana la filayaa in application-kani la soo saaro qof walbana loo sii daayo markii ay ka soo gudubto tijaabooyinka loogu talagalay in ay shirkadda geliso.